waa qaybtii labaad aynu kasii anbaqaadna halkii ay inoo joogtay oo ahayd midowgii labada gobol iyo dhalashadii jamhuuriyadda Soomaaliya. Aadan Cadde ayayna u doorteen inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya muddo 1 sano ah. maruu ka hadlayay qiimaha xornimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa uu yiri: adigoo waqtiga kan la marayo xorriyadaada qaadanaysa oo dhalanaysa waxaad leedahay waji, waxaad leedahay magac. ilaahay ha ku magan geliyo, cimri dheerna ha ku siiyo. waxaa xilka loo doortay 1 sano. 1 sano kadib waxaa si rasmi ah uu u noqday madaxweynaha Soomaaliya 6 sano. 1960 ilaa 1964 waxaa ra'iisul wasaare u ahaa Allaha u naxariistay ee Cabdirashiid Cali Sharmaake, ahaana madaxweynihii labaad ee Soomaaliya. halka 1964 ilaa 1967 oo ahayd markii uu xilka ka degay waxaa ra'iisul wasaare u ahaa Allaha u naxariistay ee Cabdirasaaq Xuseen dowladii Aadan Cadde. waxaa ciidanka xoogga dalka soo hogaamiyay Generaal Daawud Cabdulle Xirsi, ahaana taliyihii ugu horeeyay ciidanka militariga Soomaaliya. waxyaabihii Aadan Cadde uu la kulmay xilligii uu madaxweynaha ahaa waxaa ka mid ahaa dagaalkii Itoobiya ay ku soo qaaday Soomaaliya 1964 iyada oo ka soo weerartay xad badheedka Wajaale iyo goobo kale. damaca Itoobiya ayaa ahaa in ay qabsato Berbera iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya, balse geesinimo iyo iska caabin ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka oo markaa curdin ahaa ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay iska difaacaan xabashida. geesiyaasha dagaalka ku shahiiday waxaa ka mid ahaa geesigii caanka ahaa Maxamed Cabdulle Xalane. Aadan Cabdulle wuxuu ku dadaalay dhisidda ciidanka xoogga dalka iyo raadinta goboladii gumaystayaashu ay haysteen sida NFD oo markii hore Ingiriisku uu haystay balse markii dambe uu raaciyay Kenya. taasi waxa ay sababtay in Soomaaliya ay xiriirka u jarto Britain xilliga Aadan Cadde. la soco qaybaha dambe.